saddex sababood. Sababta koowaad adduunka dhan baa waxaa ka socda isbedel. adduunka dhan isbedel baa ka socda, soo bilaabmay 10 sano ugu dambeysay, laakiin si caadi u socday oon islahayn waxay qaadan doontaa ilaa 30 sano. waxaa aad u ordisiiyey Trump, madaxweynaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka markii hore u yimiday barnaamijkiisa wuxuu u hirgeli waayey madax dowladda camiiqa profonga kunta dheer ka soo qaatay iyo dowladda ku daray ay suurtaageen. iminka wuxuu keentay dad aan waxaa shaqo ku lahayn isagu wato. marka barnaamijkiisa wuxuu u wataa si degdega orada oo isleedahay wuxuu xaqiijinayaa arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay Mareykanka first, Israel first, arrinta labaad iyo sababta labaad oo ah koowaad isbedelka keenaysa waa Trump iyo orodkiisa. arrinta labaad waxa weeyaan Mareykanku wuxuu sameeyey istaraatiijiyad ABC. eedu waxa weeyaan waa qaaradda Amerika oo dhan. qaaradda Amerika soo taqaan Amerika waxa kala baxda waqooyi iyo koonfur. waqooyi waxa degan waa Mareykan iyo Canada. Mareykan wuxuu badan yihiin inta badan koonfurta u badan yihiin. qaaradda dhan inaan Mareykan loogu yimaado. haddii loogu yimaadana gacan adag buu qaadayaa. waa Venezuela wixii ka dhacday arkay. maxaa beeya waxaa beeya labada bad ee hareeraha ka xigta Pacifica iyo Atlantica iyo waxa jasiirada dhex yaala. Mareykanku wuxuu qabaa inaan loogu yimaado. ninkii ugu yimaadana faruu ka gobanaya. Siina waa maxay? waa dunida inteeda kaleeto ay ku jirto bariga dhexe ku jiraan. iyada markaa muxuu yidhi bariga dhexe? wuxuu yidhi arrinta bariga dhexe waan iska gaabinaynaa. oo waxaa la dejiyey istaraatiijiyadii 4 sano soo socota oo la dejin lahaa 2026. waxaa la dejiyey sanadka 2026. wuxuu ka baqay 2026 wuxuu ka baqay waxaa dhacaysa doorashadii nisfiga Congress midtermka. haddii dhacdana waa lagaga badinayaa. shalay waxaan arkaynay 70% in lagaga badin doono. marka waa ma soconaysa fikradiisu. marka iminku dejiyey waxaa ka mid ah in bariga dhexe la iska soo ururiyo. si bariga dhexe la iska soo ururiyana laba shay waa in la qabto. shayga koowaad maxay? in Israa'iil sidii loo badbaadin lahaa iyaduna isku badbaadin lahayd hadiyto barnaamij loo dejiyo. gartay. arrinta labaad halistaana wax weeyaan in Iiraan la burburiyo. marka Iiraan waxaa la burburinaya waa nidaamkii oo shir la galay waxaa laga soo saaray boqorkii waa la diyaariyey waa inankii shaaha u dhalay. marka waa inay sarkeen dowladda Mareykanka barnaamijkiina waa la dejiyey si boqor u noqon lahaa dastuuri asa Ingiriiska oo kale iyo wixii oo dhan baa la dejiyey. marka bariga dhexe marka ayna arrimahan bariga dhexe ay xoog u ordaan waxaa keentay taabaa keentay. marka dowladihii bariga dhexe deganaa ee xulafada la ahaa Mareykanka si waaqiciya u fikireen. iyagii markay si waaqiciya u fikireen waxay yidhaahdeen walaalkaana wiilka lahaw wiilkaagana walaalka lahaw. Mareykan xalifa la ahayd maaha isku haleyn. Shiinii Ruush oo kaceen iyo Kiina isku soo kaceen oo Pakistan oo 85% hubkiga samaysata iyo Sacuudiga baa heshiiyey. Sacuudiga waxaa laga bilaabay warshadii hubka. waxaa laga bilaabay Turkiga diyaaradihii inay sameeyaan Sacuudiga lagu dhex sameeyaa. lacagtii Sacuudiga bixinaya aqligiina waa Turkiga iyo Pakistan. marka shaqo kala bilaabatay oo ah inaan la isku haleyn oo isxulafaysi oo wixii ka dhacay Qatar yaa keentay darsi weyn oo ahayd saldhigga ugu weyn oo Mareykanku leeyahay bariga dhexe Qatar buu ku leeyahay. haddana Israa'iil soo weerartay. marka inayna ku jirin nabadgelyo iyo dareen. marka waxaa baa keentay inay gartay dhaqdhaqaaq badan uu ka dhaco bariga dhexe. gartay. markaas waxaa muuqato isxulafaysi inuu bilaawmay kala miirmay weliba. marka waxaa la isweydiin karaa isxulafaysigaas imise ayuu u kala miirmay oo u kala baxay maxaase ka soo baxay? okay, isxulafaysiga bariga dhexe ka bilaabmay waa 3 qolo. qolo waa xulafo cad oo ah hogaaminayo Maxamed bin Salmaan. inkastuu hogaamin lahaa Erdogan laakiin isagu u dhiibtay inuu hogaamiyo. marka Maxamed bin Salmaan baa hogaaminaya. waxaa ku jira Turkiga, waxaa ku jira Qatar,
waxaa ku jira masar oo iyadoo dhexdhexa maaragtay meel weli aan jirin laakiin u badan in xagga soo marto. waxaa kaleeto oo lagu soo wadaa hadduu dagaalkani dhaco oo iiraan si uga baxdoon ina iiraanna soo gasho. marka xulufadu waa taasi waa qolo. qolada kale oo xulufada waxa weeyaan waa xulufo cad iyo kuwaan caddayn. kuwa cad waxa weeyaan waa Israa'iil iyo Imaaraadka waa xulufo weeyaan. yaa ku jira Urdun yaa ka mid ah. suldada Falastiin baa ka mid ah. Abbas oo xukumo dowladda iyadoo waxbaan haysan. Abu Maazin baa ka mid ah. marka kuwaasina waxa weeyaan waa qolada labaad weeyaan. qolada maaragtay saddexaad oo iyagu aan isleenahay waa xulufo laakiin aan dhahayno waxaa horkacaysa Masar. waa Masar, waa Suudaan, waa Djibouti, waa Soomaaliya. kuwaasina waa xulufo. marka Masar baa doonaysa aabanimo waxay diidan tahay Sacuudigu inuu aaba noqon bay rabtaa. marka kuwan yar bayna urursanaysa. marka inkastoo ma dhowto badda bandhig lagu sameeyay badda oo lagu tababaranayay Sacuudiga hogaaminayay Masarna ka wadaahay ma ayna rabin Masar saa noqoto. marka Masaarida iyo Suudaan iyo iska burbursan Soomaaliya oo xaalad ka tahay Djibouti dowlad yar. marka saas bay u abuurmaysaa dowlado xulafaysanaya. waxaa la isku yaqaanay Sacuudiga iyo Imaaraadka inay isku xulafo ahaayadaan way kala boodeen. kala boodkaas ay kala boodeen maxaa sababay baa la isdhihi karaa? horta taariikhiyan Sacuudiga iyo Imaaraadku heshiis ma ahaan jirin taariikhiyan 3 sabab daraadood. sababta koowaad waxa weeyaan Imaaraadku wuxuu doonayay inuu quwad weyn noqdo oo dowladaha Cumaan marka laga reebo khaliijka oo dhan inay noqdaan Imaaraad ay ku xukumaan. oo fikradda Sheekh Zayed Saabix ahayd kuweynayna soo gasho Qatarna ay soo gasho iyo Imaaraadki intaas oo awood noqoto. Sacuudiga waa dowlad weyn marka awood weyn garab fadhiisi iyo ka fikir jireen Imaaraadku. marka dowladda Sacuudiga madaxdoodu waxay u arkeen Imaaraadka munaafis siyaasi ah. dhinaca kale ee xagga caqiidada iyo ideolojiyadana khilaaf weyn baa u dhaxeeyay. dowladda Imaaraad waa dowlad Suufiya weeyaan. Sacuudiga waa dowlad Salafiya Wahaabiya. caqiidada kala duwan. afkaartooda aad buu kala duwaneed. markii dowladdu Sacuudiga ahayd dowlad caqiidada ku socota ee Wahaabiyada ku socota si fiican ku socota ama Salafiyada. way iska ilaalin jireen Imaaraadka. yani Imaaraadku Suufiya u arkeen. taasina waxayd isma fiicnin jirin. arrin saddexaad bayna isku fiicnaan jirin. had iyo jeer Imaaraadku wuxuu soo bandhigi jiray mashruuc ka soo horjeeda Sacuudiga. waxaa ka mid ahayd mashruucii Dubai, mashruucii Abu Dhabi. mashaariic waxay keeni jireen Sacuudiga ay ku gilgilayaan dhaqaalihiisa. arrintaasi goormay burburtay oo taxaaluf noqday.